إيمكنا وحنو يريا معلم ناصر على تلياني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي ورتبرك هوري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحن وهرين هل كان أنا وأن كعب بارين يا سوري وحن تعسو ودري يا مركو وهريسة أبوان كيني وينا شلت هولي هل كان قريودي ودنك محمد ورسامي هدراوي وأهارنتي أبوان معلم في صوماليا أنت شرتي إمك بري ومعلم وها وحنا إلهي هون حريستو نقاليا نكتي أنت وحن كدريا فلكي runtii foosha xumaa ee ka dhacay Hargeysa iyo gobolada wadanka ee ay ku geeriyoodeen dad doonaya in ay arrinkooda ku muujiyaan codkooda banaanbax iyagoo oo sheegaya in isbedel doonayaan in rasaas lala dhaco halka waxaan ka arkaa in ay runtii Somaliland dimuqraadiyadeedii iyo arrinkii ay u socotay wanaaga ahaa in ay xumaan ay sawir xun ka bixinayso waxaan xasuustaa anigu oo kamid ahaa 1982 ardaydii ka dhagaxa ka tuureysay iskuulka ku jirtay Faarax Omar waqtigaas oo aanu dhagax beebeeyadii iyo kaarayaashii la dhacaynay intaasoo qof nagama dhiman runtii waxa naxdin leh in ay maanta Hargeysa iyo Burco iyo magaalooyinkii laga babaxay laga mudaharadeeba ay ku dhinteen caruur yar oo aan sida waxuba iyo dad kale oo muwaadiniin u soo baxay in ay codkooda ku muujiyaan waxa ay doonayaan jecel yihiin waxaan leeyahay arrimahaas waxa ka mas'uula nimanka xukunka jooga maanta oo ay taariikhdooda runtii ku suntanaanaysa waxaanan soo jeedin lahaa anigu shakhsi ahaan anigu oo xisbi iyo cid kale toona aan wakiil uga ahay arrinka in loo saaro independent commission baara sidii arrinkaas uu dhacay iyo falka noocaas cidii ka dambeysay oo baarlamaanka iyo guurtidu ay arrinka xil iska saaraan xaq lana soo saaro maxkamad dadkii falka ka dambeeyay dhimashada iyo dhaawaca ku dhacay maatida iyo caruurta iyo dadka meesha ka mudaharaaday arrinkaasna waa arrin sharci ah waxna sifaa sharciga loo maro waxaan kaloo halkan ka soo jeedinayaa in golaha baarlamaanka iyo guurtidii la doonayay in ay sharcigan ku soo dabaalaan wadanka ay shaqadoodii qabsadaan oo fasaxan ay ku maqeeyeen ma aha maanta mid Somaliland anfacaya waa in ay ku soo noqdaan wixii dadku u igmadeen taasna intaasaan ku dhaafayaa waxaan kale oo aan halkan runtii doonayaa inaan iyadana ka sheego Somaliland waxay ku soo caanamashay tanaasul iyo runtii wada tashi inagoo oon cidna durayn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aynu leenahay madaxweyne sharcigu baa la isku hayaa sharciga aduguna ku soo noqo oo doorashada qabo 13 November qoladan ururada ee dabka ku sii shidaya ee gaasta ku sii shidaya arrinka waxaan leeyahay warnimayo arrinka ka odayayo ka daaya dabkana ku sii shidaysaan ururada hadaatiin waxaan arkayaa halkii ay nimo waaweyn oo runtii de aan islaha way dhexgelayaan arrimaha ina iyagu aad moodid in ay gaastii dabka ku sii shidayaan taasina waa mid subxaanallah waxaan leeyahay arrinka laga waantoobo ugu dambeyn waxa beesha anigu aan ka soo jeedaa ay runtii ugu tageen madaxweynaha in ay arrimahan bal wax ka qabtaan oo ay soo afjaraan arrinkaasina runtii waxay noqotay inay dad badan oo Somaliland ku nool maanta ay ka warsugayaan arrinkaasina waxa weeye arrin runtii anaga nooga bartay beel ahaan nabad iyo caano inta kaftanka ku darsadee in beeshu ay ku caanbaxday waxaan leeyahay arrinka waxaan rajeynayaa in ay nimankaas xilqaamay ay war guul leh farxad leh oo Somaliland maanta ay ku degto in ay ka soo saaraan insha Allah taala waanu rajeynayaa arrinkan aad baa u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay macallin Naasir Cali Talyaani